taariikhdiisa raggii yaqiinay siday ku warrameen raage ayaa cilmi xuseen oo abtigiis ahaa wuxuu ka doonay gabadh uu dhalay oo cabban la ohan jiray waa la siiyey waana lagula xididay xoolo aan badnayn oo yaradkii lagu heshiiyey ka mid ah ayuu bixiyey dabadeedna iyada oo aan loo mehelin ayuu reerkoodii isaga laabtay ha yeeshee alalaaskii arooska isaga oo weli u tabaabushaysanaya ayaa nin kale isla gabadhii soo doona ninkaas oo axmed la ohan jiray waxaa dhalay garaad wiilwaal oo galbeedka dhulka soomaalida jeer ka ahaa taliya jiitaa ah oo cidi aysan maya ku odhan jirin kuna odhan karin goor galab ah ayuu axmed aqaladii cilmi xuseen wuxuu soo hortubay 50 halaadoo yarad ah mid ka dhacdan ah aan lahayn odaygiina waxa ugu wacnaaba muu odhan axmedow raage ogaas ayaan cabban kula xididay nin kalena kula xididi maayo ama wuu yidhi wuu ku adkaysan waaye si kastaba ha ahaatee axmed wiilwaal geelii waa laga guddoomay gabadhiina waa loo dhisay isaga oo og inay raage u doonanayd bari dambe isaga oo warbooga ah ayuu raaga soo dhigtay isla habeenkii uu reer cilmi xuseen u soo hoydayba wixii dhacay wuu ogaaday aad buuna uga cadhooday ugu dambaystiina wadahadal dheer oo lagu daalay kadib ayuu odagii wuxuu raage u soo jeediyey tala uu islahaa wuu ku raalli noqon doonaa wuxuu ku yidhi maandhow la ceebowiye faadumo oo cabban ka yar baan kuu dhisi anigaana kugu xoolayn ee aan kuu duceeyey sidaa ku raalli noqo taana raaga wuu oggolaaday isaga iyo faadumana intay isguursadeen bay si aan la filayn isu jeclaadeen muddo hadday wada joogeen ayay faaduma reer aabbaheed u dhibaad doonatay saa waxaa la soo siiyey awr goolal ah rara wada mariiman qumbayaal sixin ah tabado oodkaca iyo wax alla wixii cid ladani ay gabdhaheeda ku dhibaadin jirtay oo keligeed lama soo dirina waxaa lagu soo daray adduunkaas reerkii ay ka timid rag la gaarsiiya waxay dhabbaha hayaanba goor ay casarliiqi tahay ayaa waxaa u muuqday barinkii ay reer raage ku jireen kolkaas baa nimankii gabadha lagu soo daray waxay ku tashadeen si dhibaata ay wadaan goor barqa'a loo arko afaafka reerka inay habeenkaa isaga furtaan beri foogna ay cidda galaan ha yeeshee taladaas faaduma way diiday waxay tidhi raage oo intaa ii jira lagama yaabo inaan caawa halkan ka seexdo dabadeedna waa inoo berri intay nimankii ku tidhi ayay u dhaqaaqday sharqanta reerku xaggii ay ka soo yeeraysay maxaadse ku falaysaa iyada oo tallaabada hoosta ka boobaysa ayay caleynteedii cirka ka soo dhacday wax yar kadibba iyadoo garaaraha tuuraysa ayaa libaaxa diyahaalsani geeda jiqa kaga soo baxay oo haddiiba laba isla e ka dhigay gaajadiina isaga reebay waagii baa beriyey raggii dhibaata waday iyo raagi ayaa isu yimid haddiiba faadumo ayay isweydiiyeen annaga naga timide adinku ma aragteen iyo maya nama soo gaadhin ayay isugu warrameen dabadeed raadkeedii baa la qaaday mase guri ba'ay cabbaar gibina kadibba lafa aan weli hilibkii ka qalalin iyo raqdeedii baa la istul taagay raage dhulkaa loo wareegay bari iyo galbeed baa isaga darmay habeenkaas iyo habeenadii xigayba il iyo baaris ma uu saarin wuxuu isu qaatay boqortooyo dhowaan u soo gacan gashay nin laga tuuray oo guuldarrada ku dhacday aan ka soo kaban doonin markaa buu tiriyey tix baroorahoo uu ku alaladay tix ka mid noqon karta maansada ay suugaanta soomaalidu ku faani karto ee midda adduun weynaha ay kula tartami karayso isaga oo ku bilaabaya hugunkii xalay ka yeerayay ee dad badani ay dartiis ku hurda seegeen ayuu yidhi sida koorta yucuboo la suray koroma buubaala shinni kaaluf galay ama sidii koronkorkoo oobi ama koox arda ah oo qur-aan kaadibka u toostay ama beelo kaynaanahoo kor u hayaamaya ama geelka reeb oo dhirgihii laga kaxaynayo ama ceel karkaarada jabshay iyo webi karaar dhaafay ama habar kurkii keli ahaa lagaga kowsiiyey ama kaal dallay qaybsan iyo kuriga dhaal yaabis
xalay kolola aygii ma ladin kaamil reeruhu yabku intaa markuu yidhi ayuu ku xejiyey meelise culculusoo uu noogu sheegayo geerida Faadumo wixii uu ku waayey iyo waxay badday. wuxuu yidhi kambalkii ardaagii miyaa laygu kaliyey kumbiskii miyaa layga qubay kolaygii ii buuxay wixii ragaygu kuuyey miyaa igu karaamoobay kob abaara meel dhexe miyaa koora ila meeray kub miyaan ka jabay biixi aan kabaya loo haynin maantana kataantii miyaa layga kala tuuray 1,000 kurtoo dumar haddii laysu wada keeno kolna waxaan la helayn haween Faadumo kale. horaantii 1980 qarnigii 20aad ayaa cilmi baare Ameerikaan oo dhaqanka Soomaalida danayn jiray iyo anigu gabaygan isla soo qaadnay milkadiisa suugaaneedna ka faaloona labada meelis u dambaysa ayaan isku dayay inaan u tarjumo markaas buu la yaabay wuxuu yidhi diradire guubaabo iyo dagaal mooyee ma moodayn maansadiina inay ku jiri karaan laba meelisoo sidaa u dabacsan dareenka qofkana taaban kara wuxuu u jeeday 1,000 kurtoo dumar haddii laysu wada keeno kolna waxaan la helayn haween Faadumo kale. dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo